السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها بدن ku xiran kanaalkan YouTube-ka ee Danjile Channel isku soo noqdo wanaagsan iyo article oo xiiso leh maanta maxaan doonaynaa in la wadaago waxaan la wadaagaynaa mowduuc aad qaali ah oo qof walba inaga mid anfacaya maxaa yeelay mar walba waxaan isku daynaa mowduuc intuu ka muhiimsan yahay inaan channelka soo gelino ama dadka soo gaarsiino marka adigana waxaan ka codsanaynaa hadii video-gan uu soo gaaro inaad si share gareysi oo like-tan ugu caawisi iyo subscribe-ka kaaga uu gaadhin aad gaarsiiso faa'iidadan asaguna u helo su'aashaas weydiinaysi waxa weeye mowduucan laga hadlayo ee qaaliga muxuu yahay waxa weeye sidaan ugu hortagi lahayn baalkan loo yaqaan jiirka oo dhibaato fara badan ku haya guryaha Soomaaliyeed oo guri walba maanta kamid ah ama uu joogo ama dhibaato uu ku hayo oo dadku ka cabanayaan oo alaabta ka jarayo oo wax walba marka ka qaribayo dhibaatooyin kale oo caafimaadna uu keeno siday dhakhaatiirtu cadeeyeen ama ay sheegeen waxay yiraahdeen fayraskan loo yaqaan biiga ee ku dhaca beerka ayuu keenaa oo maxaa yeelay alaabta ayuu dhex galaa oo marka saxaradiisa ama uu leefa hadhow markaan dadkina waxay sameeyeen ku isticmaalaan oo wax ku cunaan marka xanuunkii marka uu si fudud ugu gudbo oo dad badan ma la daran yihiin oo la jiifaan isbitaalada marka sidee baan uga takhalusi karnaa ama sidee baan gurigeena uga suulin karnaa halkan ayaad ka faa'iideysan doontaa oo kugu soo gudbin doonaa marka wasaari doontii gurigaaga oo adigoo aan u marin qarash badan iyo hawl badan iyo dhibaato badan oo gelin marka waxaan kula dagaalamayno waa wax agteena yaala oo aynu hayn inaan meel fog ka raadino ama aanu qarash fara badan naga baxo midna aynagu keeneen weeye arrinkan doonayno inaan jiirka kaga hortagno aan marka kaga suulino guryaheena waxaad soo iibsanaysaa saddex shay waxa ugu horeysa dhiitoosha maadada loo yaqaano iibiyaan farmasiyaasha laga hortago feerasada iyo waxyaalahaas iyo lows iyo xabad yaanya ama xabad xabuuba say dadku qaarba u yaqaanaan waxaad samaynaysaa xabadii yaanyadeed ayaad kala jeexaysaa marka aad kala jeexdi ayaad halkan dhiganaysaa lowskii oo halkan ku yaala ayaad soo qaadanaysaa mooyaha yar ayaan ku toona xawaajiyada ee guryaha inoo yaala lowskii oo aad ka saartay qoloftii ayaad ku guraysaa waad tumaysaa budaad ka dhigaysaa waxaad ku shubanaysaa jabcad lowskii halkan ayuu ku diyaarsan yahay waxaad soo qaadanaysaa milqacad sonkora waad ku daraysaa lowskii inta markaad samaysay ayaad ku walaaqaysaa sonkortii iyo lowskii xabadii yaanyadeed labada jeex ka kala dhigtay ayaad wax ku daraysaa maadadii dhiitoosheed malqacada foodeeda ayaad ku shaysaa dhiitooshi waxaad markaa jeexi halkan ku yaalay xabuubta aad ku daraysaa jeexi kalena sidoo kale ayaad samaynaysaa asagana sidoo kale aad ku daraysaa kadibna halkii lowskii ku diyaarsanaa ayaad soo qaadaysaa oo malqacada aad ku soo qaadaysaa jeexi xabuubtaha ayaad korka kaga shubaysaa lowskii jeexi kalena sidoo kale ayaad samaynaysaa labadii jeexba marka halkan ayaad dhiganaysaa oo lowskii markaa ku marsan yahay ama dusha kaga shubtay marka halka aad jiirka ku tuhmaysi aad leedahay halkaas ayuu guriga ka soo galaa ama halkaas uu joogaa ama jikada noqoto ama guriga noqoto ama qolaalka noqoto marba mowduuca aad leedahay jiirka uu joogo ayaad dhigaysaa saacad yar ka bacdi jiirkii wuu imanayaa wuxuu isticmaalayaa xabuubtii iyo lowskii iyo sokortii aad isku dartay oo dadii dhiitoosheena ku jirto ayuu cunayaa marka uu cuno isla markaaba halka ayuu ku dhimanayaa ama ku baktinaya waxaan waan tijaabiyay oo aan tijaabo ka qaaday maantaan arkay mowduuca anigu marka aan tijaabiyay oo isku dayay marka walaalahana inaan u soo gudbiyo oo saas wax qarasho culus oo kaaga baxay ma jiro wax wada fudud aan wada helayno marka jiirkii waxaad u samaynaysaa hameenkayga aad samaynaysaa marka sameysii uu isticmaalaya marka uu isticmaalo uu cuno halka ayuu baktinaya wax jiir oo dambo ku dhibi doona ama guriga ka caban doontii maanta laga bilaabo ma jirayaan marka walaalaha gaarsiiyo oo si share garee oo video qof walba uu ka faa'iidayo waxaan ka codsanaynaa hadii uu soo gaaro inaad walaalka kala bakhaylin oo aad si gaarsiisay intaan ku kulmi doono mowduuc lamid ah inta ayaan iga tagayaa fi amaanillah